Assalaamu calaykum. Shirkadda Google ayaa shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid ah su'aalihii ay dadku weydiiyeen boggeeda internetka. Arrimahan oo muujinaya siday xaaladdu ahayd sanadkii tagay ee 2021. Shirkadda weyn ee bixisa adeegyada tiknoolajiyadda ayaa ah goobta ugu caansan ee bixisa jawaabta su'aal kasta oo ay dadku weydiiyeen iyo mowduucyo kale oo dadku xiiseynayaan si ay wax uga ogaadaan. Su'aalihii ay dadku weydiiyeen waxaa ka mid ah: 1. Sanad adag. Markii cudurka coronavirus ku baahay dunida oo la galay sanadka 2021, dadku waxay weydiinayeen Google ereyga doomscrolling oo ah kelmad Ingiriis ah oo macnaheedu tahay in la arko war aan fiicnayn. Shirkadda Google ayaa sheegtay in la weydiiyey kelmadda doomscrolling marar badan marka loo barbardhigo sanadihii hore. Dad badan ayaa kelmaddan ka baadhay Google bishii Janaayo iyaguna u saraysay. Dunida waxaa sanadkii la soo dhaafay si ba'an u saameeyay cudurka COVID-19. Jahwareer iyo hubanti la'aan ayaa ka dhashay. Dalal badan ayaa xidhay xuduudahoodii, waxaa hakad galay duulimaadyadii. Dalal badan ayaa waxay ku dhawaaqeen bandow laga hortagayo fiditaanka cudurka coronavirus. Dadku waxay ku wada jireen baraha bulshada ay ku wada xiriirto sida Google, iyagoo xog ka raadinaya halkaas. 2. Walaaca dhanka xanuunka dhimirka. Sanadkii tagay ee 2021, waxay dadku weydiinayeen kelmadda caafimaadka ee dhimirka kadib kalinimadii iyo murugadii ka dhalatay xayiraaddii COVID-19. Dadka adduunka ku nool waxay weydiinayeen Google sida loo daaweeyo burooyinka maskaxda in ka badan sidii markii hore. 3. Isbeddellada cimilada. Dadka arrimaha caafimaadka kaliya mayna weydiinayeen Google, balse waxaa sidoo kale weydiinayay dadkaan baran caafimaadka saamayntii ka dhalatay isbeddellada cimilada sida duufaanada iyo dabkii baabi'iyey kaymo ku yaalla adduunka. Marka loo eego xogta Google, dadku waxay weydiinayeen sida loogu noolaan karo dunyo nadiif ah abid. Dadka degan magaalooyinka iyo buuraha waxay raadinayeen macluumaad ku saabsan saamaynta isbeddellada cimilada marka loo barbardhigo sannadihii hore. Waxyaabaha ay dadku sida weyn uga raadinayeen Google waxaa ka mid ahaa xogta la xidhiidha jasiiradda Fiji oo ay si xun u saamaysay isbeddellada cimilada. 4. Arrimaha dhaqaalaha. Dadku waxay inta badan ka walaacsanaayeen shaqadooda iyo dhaqaalahooda kadib jahwareerkii dhaqaale ee uu sababay cudurka coronavirus sanadkii tagay ee 2021. Dadku waxay weydiinayeen Google sida loo bilaabi karo xirfad cusub iyo qaabka shaqo loo heli karo. Dalka Mareykanka oo keliyata waxaa weydiiyey in ka badan 4 milyan oo qof, kuwaas oo shaqadoodii waayey bishii Oktoobar oo keliya. Sida lagu sheegay xog laga helay waaxda shaqada ee dalka Mareykanka, saamayntii dhaqaale ee ka dhalatay safmarka COVID-19, dadku waxay bilaabeen inay si taxaddar leh u darsaan sidii ay u beddelan lahaayeen xirfaddoodii shaqo.